in wanaagii u dhadhami laayahay in jaarnimadii u dhadhami laaday in ehelnimadii u dhadhami laaday way colaad iyo dhibaato ka doorteen ama ay ka jecel yihiin mar hadday sidaa tahay oo maxay nabadii aanu ku baaqaynay iyo walaaltinimadii aanu ku baaqaynay inta badan ee aanu ku celcelinaynay ay dhagahooda gali weyday waxaan mar labaad ugu baaqayaa dadka maxay horta marka uu horeysa ilaa Qorolugud iyo nawaaxigiisa ilaa Ceerigaabo dadka degan ee halkaa horta degan iyo inta kale reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan sidii ay maxay dalkoodii iyo dantoodii iyo noloshooda u difaaci lahaayeen ay uga difaaci lahaayeen ragaas oo tafaxaydan meesha la yiraahdo Awaare maan dhaweed ku shiray oo yiri waxaan la yiraahdaa Bahagar Hajis qoradaana kelmad baan leeyahay oo dadka u sheegaya horta markii hore Garxajis waa Siciid iyo Daawud marka waxa ka sokeeyo mar maxay marka labada laga yimaado ee Garxajis halka la yimaado labadaana ay kala yihiin waxa ka sokeeyo la yiraahdo Bahagar Hajis deanu garan maayo meel jiraan ma jirto waxba kama jiraan waxa kale oo inta ku daraya talada qabiilka guud Garxajis waa reer ballaaran dadkuna waa caynka markay tala guud ay tahay wax guud maxay taabanaya ama tala guud oo reerku isugu yimiyo uu go'aan ku qaatay uunbu iyo codkaas ku bixi kara ama mid sandaladeed oo guud oo maxay mas'uuliyadii guud ee sandaladeed haysabay uu ku bixi kara wixii cid aan ahayn waa kooxun meel isugu tagtay halka iyada runtii aad wax looga naxo oo aan aqligu qaadan karin oo maxay sinaba sax u ahayn ayaa ka dhacay oo ah xasuuq umadeed oo loo kala aabayeelin oo caruurta iyo dumarka iyo intii la dhowri jiray aan cidna la dhowrin ma garatay oo ay geysteen maxay kilalka shanaad ciidamada maxay la yiri waa kilalka leh waana caado ay soo lahaayeen de horena taa qaar ka badan oo hore ay u geysteen ciidamadaas iyo halka maamulka jiray bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad iyo aad baan idin salaamaya maxay Horyal TV shirkan jaraa'idan maanta idinku yeerayna wuxuu ku saabsan yahay inaan dhowr marxaladood kaga hadlo oo xaaladda maanta taagana haddii aan ugu horeeyo qodobka koobaad shirka qolada warsangeli ee maalmihii u dambeeyay ka dhacay maxay gobolka Sanaag qaybo kamid ah meel kamid ah dadkuna aad loo maxay yaamahan looga hadlayay shirkaasu wuxuu ahaa shir colaadeed oo ku salaysan warsangeli colaada maxay muddada badan jirtay ama taariikh horeba ha noqoto ama mid dhaxba ha noqotee intaba ka mid buu ahaa maruu ka maqnaa ma jirin marka had iyo jeer waxaa iyo caada marka colaadaha noocaas oo kala la wado markuu muddo joogaba muxuu ahaa in hoos uu xaaladiisu u yar magaranaysaaba in lagu sameeyo abaabul cusub iyo qorshe cusub wuxuu ku saabsanaa shirkaasu shirkii hawshii iyo dagaaladii laga waday ilaa meesha la yiraahdo Qorolugud iyo nawaaxigeeda ilaa iyo Ceerigaabo reerka warsangeliya reerka dhulbahanta la yiraahdo in maxay ahayday dib loo abaabulo oo lagu cusboonaysiiyo dadka iyo hawshaba dagaalada ay wadaan inay maartay dib ugu cusboonaysiiyaan qolada dhulbahanta laftoodu waa arkaysan oo media waa jirtaa cid walba arkayso maalin walba waa ogtiin waxyaabaha hawsha halka laga wado marka horta marka u horeysa waa in loo arkaa ama loo fahmaa ama aan u arkayna waxa weeye waa abaabul dagaal cusub weeye
gudiyada la sameeyay iyo qorshaha la sameeyay baana maxay hadallada de ku qoran baana cadeynaya inay sidaa tahay halka intaasaan ka leeyahay waxa kaloo aan ka hadlayaa iyadana qoliyaha dagaalka wada had iyo jeer waxay ku celceliyaan muxuu ahaa dagaal baa lagu qaaday iyo maxay hayday nabad baa la jabiyay halkaasna waxa weeye oo waxaan xog ka jirin weeye dagaalka maanta halkaa ka socda aan tilmaamay cidda abaabushay nabadii lagu wada noolaa jabisay ilaa maanta wada waxa weeye waa beelaha aan sheegay weeye cidaan iyaga ahayno wadaa ma jirto dalkan 19 markii maxay hayday heshiiska lagu gaadhay maxay hayday nidaamkii hore burburay dib loogu soo noqday cidna laguma hagardaamayn cidna laguma cadaadin cid gaar oo wax gaar ka sheegaytayna ma jirin laakiin waxa weeye beelahaasu waxay intaa wadeen iyagoo heshiiska wax ka qaatay oo maxay hayday muxuu ahaa halkii lagu qaadanayay qaybta ugu weyn ayagu haayeen garaadadooda iyo dhammaantoodba dalkana ka mid ahaa Somaliland dhismaheeda iyo hawlaheedaba ay ka mid ahayn mar walbana ku jiraan ilaa maantana ku jiraan waxa weeye cida nabadda maxay nabadii jabisay ee dagaalka wada ee ilaa maantana wada waa beelaha aan sheegay cid kale wadana ma jirto waxaan u arkaa inuu yahay mashruuc ay beelahaas soo qaateen ama xaqiiqadiisu ku salaysan tahay in Somaliland lagu burburiyo Somaliland lagu burburiyo in badan baan markii u dambeeyay kala hadlay reeraha aan tilmaamay wax garadkooda rag badan oo kamid ah markii la ascaanood iyo hawlahaas u dhaceen kadib waxaan ku yiri waxa yeeshaan war ku dagaalka ku joojiya halka inta imka maanta oo maxay dhibtu ka dhacday ku joojiya dagaal faa'iido ma dhalo cidku maxay hayday mira maxay ka goosato oo ka faa'iidana ma jirto dagaalkaas iyo dagaal qabaa'ilna isu bedelin dhibaatadiisuna aanay sii soconin halka ku joojiya baan in badan kala hadlay waxaan arkayay waxa weeye inaan dagaalkaas soo dila sii baahiyo la sii wada wax faa'iido ah oo lagu gaadhaya ama ka soo socota aanay jirin marka waxa weeye waa waxay cadeynaya inay maxay hayday beelahaas ku soo qaateen contract ama maxay hayday mashruuc ku soo qaateen Somaliland baanu burburinayna waxaan leeyahay waa riyo waxba kama jiraan waxba ma burburin kartaan intaana waxaan leeyahay colaadna nin ku faa'iido ma jirto cidaan idinka iyaga ahayn oo colaada wada oo burburinta wada oo wixii la wada galay jabisayna ma jirto iyaga jabiyay iyagana wada iyagana jabiyay haddana waa wadaan halkaana intaan ka tilmaamaya waxa weeye maxay hayday waa sida ay xaqiiqadii arrintu tahay weey waa taa ceerigaabo oo u dambeysay cida dabka ku qabatay ee ciidanka soo gelisay ee iyadoo nabada dagaalka ka dhaxaburtay de waa la hayaa waqtigeedii iyo saacadaheediiba aytay waa meel walba ku duubantay badiyaduna maanta wax qarsooni ma jiraan geedkii lagu murmi jiray waxna laga duubi jiray waxna laga soo saari jiray maaha wixii ka soo dhacay waa duuban yihiin adduunku waa maanta adduun hore u maray marka cida waxa weeye waa saan sheegay dagaalkii halka laga waday ee la ascaanood iyo nawaaxigiisa ka bilaabmay ayuun baa halkaana inta ciidamo la soo qaaday oo la soo raray ceerigaabo nabada la soo galiyay iyadana dabeedna maxay hayday halkaas ayaa ma garanaysa haday dhibaato ka dhacday iyo hadii dagaal ka dhacay iyo hadii dad ku dhintayba horta waxa weeye dabkay sida aan sheegay reeraha suushadeen iyo hadii ciid nabada jabisayba intaba iyaga runtii waa xaqiiqada boqortaal weey marka halkaana intaasaan ka tilmaamayaa waxaan leeyahay waxa weeye markaan inta halka kaga gudbo waa markii labaadan hawsha arrinka ka hadlo
waxaan leeyahay beelaha aan tilmaamay waxay u muuqdaan ama ay tahay in nabadii u dhadhami laadahay in wanaagii u dhadhami laayahay in jaarnimadii u dhadhami laaday in ehelnimadii u dhadhami laadahay way colaad iyo dhibaato ka doorteen ama ay ka jecel yihiin mar hadday sidaa tahay oo maxay nabadii aanu ku baaqaynay iyo walaaltinimadii aanu ku baaqaynay inta badan ee aanu ku celcelinaynay ay dhagahooda geli weyday waxaan mar labaad ugu baaqayaa dadka maxay horta marka uu horeysa ilaa Qorulugud iyo nawaaxigiisa ilaa Ceerigaabo dadka degan ee halkaa horta degan iyo inta kale reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan sidii ay maxay dalkoodii iyo dantoodii iyo noloshooda u difaaci lahaayeen ay uga difaaci lahaayeen raggaas oo tafaxaydan ee miiriyaha waxa ogtiin ka shubaya ee cadaawad abuurka ah ee cayda ah ee aan xitaa dadku hadii maartay wax la galo waxa weeye had iyo jeer waxba la kala haraa wuxuun baa la xeeriyaa wax la waxay xeerinayaan aanay jirin waagi badiya waxa cayda halka ugu xun ka hayay ogtihiin ee miiriyaha ku duuban waxaan leeyahay on mar labaad leeyahay oo mar saddexaad ba leeyahay had diyaar garoobeen dadka duulaanka lagu yahay ee loogu soo tafaxaydan yahay in la maxay dagaalka iyo maxay dilka iyo xumaanta loogu soo tafaxaydan yahay ha u diyaar garoobeen inay difaacaan dalka intay degan yihiin iyo noloshooda ha difaaceen xaq bay u leeyihiin waa mas'ala diiniye weey xaq bay u leeyihiin waxaan leeyahay difaac u diyaar garooba maxay ilaashada taas horta waxa weey waxa maxay ragga aan sheegay ay u soo maxay u soo qalab qaateen si ay isaga difaaci lahaydeen isaga maxay isaga celin lahaydeen waa qodob waxa kaloon hadalkayga halka iyada ku soo urunaya guud ahaan Soomaaliland waxaan leeyahay iyadana ragga aan sheegay oo u arko inay Soomaaliland يعني كسو قاتين قندراس سيدي لو بربرين لها إن يقونا قودهان لو ديار قروبه وسيدي قرن كان يد أمدن يدل كان لو دفاع لها انفرق بحيدي ليالو وحيابها يرير محايدي ومد كستو بيالكوض النوري وحبالك ربطوضا وحيابها يرير ودايس كتشرا قودها تشرانا وحان ليه وحي سومالي لان قودها كتشرا يرير nimanka hadda iyagu iska badheeray reer Soomaaliland kamid ahaa ee aan tilmaamay qorshaha maxay ku socdo mooyaane inteeda kale Soomaaliland waxaan leeyahay sida qarankiina iyo dalkiina iyo dadkiina u difaaci lahaydeen guud ahaan in loo midoobo taladeeda iyo arrinkeeda ayaa iyadana loo baahan yahay waxa weeye taana intaasaan ka leeyahay markaan inta halka dhigay waxaan ka hadlayaa meesha la yiraahdo Wacalay iyo kilalka shanaad halka iyada runtii aad wax looga naxo oo aan aqligu qaadan karin oo maxay sinaba sax u ahayn ayaa ka dhacay oo ah xasuuq umadeed oo loo kala aabayeelin oo caruurta iyo dumarka iyo intii la dhowri jiray aan cidna la dhowrin ma garatay oo ay geysteen maxay kilalka shanaad ciidamada maxay la yiri waa kilalka leh waana caado ay soo lahaayeen de horena taa qaar ka badan oo horay ay u geysteen ciidamadaas iyo halka maamulka jiray inay la xilligu joogay jaamacadu badbaa jirtay kuwa badan oo ka dambeeyay baa jiray waxaan rajo ka qabnay ama runtii dadku ay rajo ka qabeen deegaanada kilalka shanaad ka tirsan iyo dalka ummadaha halka maxay nool ee maxay Itoobiyaanka maxay wadanka degan ee ismaamulka dawladda maxay deegaanka Soomaalida inay markii uu madaxweynahan isbeddelku dhacay ee madaxweynahan uu meesha yimi inay xaaladahaas isbedelaan inay nabadgelyo noqoto in ciidanka isagoo direyskii dawladnimo ku gabanaya dadka laynaya uu meesha maxay ka baxo oo uu noqdo hadduu ciidan nabadgelyo yahayna ciidan nabadgelyada iyo waraag ka shaqeynaya uu noqdo haddii aanu maxay noqonayna maxay dalka iyo dalkaba laga badbaadiyo oo laga joojiyo waa ka wada hadalay madaxweynaha waqti kamid
waxaan leenahay waxa weeye mar hadday tiinan joogsan weyday oo isbedelkii aanu filaynay iman waayay oo maanta haddana dhacday tanu xasuuqan u dhacay oon sinaba loo aqbali karin waxaan leeyahay iyadana dowladda Itoobiya federaalka aad iyo aad baan maxayday markii ra'iisul wasaaraha iyo inta hogaaminaysaba waa maxayday waxa weeye waxa hawlaha aanu sheegnay shaqo kuma leh waxa weeye kaleelkay ku koobantay laakiin maadaama dowladda federaalku ay mas'uul ka tahay dalka iyo dadkoo dhan waxaan u soo jeedinayaa ra'iisul wasaaraha iyo inta la midana in arrinta iyada si qoto dheer loo baaro oo la eego ummadda ay dowladda Itoobiya ka midka ah ee xasuuqyada inta isdaba joogay ilaa maanta ay dhacday in maxayday iyadana si qoto dheer dowladdu maxay man ka codsanaya oo dowladdu si qoto dheer u eegto maxay ahayday halka meesha waxa ka dhacay ciidamada shaarka dowladda ku leynaya dadkana dowladda federaalku sidii wax looga qaban lahaa ee degdeg wax looga qaban lahaa in iyadana faloogaad la qabtaan codsi ugu soo jeedinaya maxayday iyadana halkaasaan intaana halkaasaan ka leeyahay waxaan ku gabagabeynayaa deegaanada aan sheegay dadkay khuseysay degan ee ku nool waa inay waxaan ku talinayaa ama aan soo jeedinayaa in talo la isugu yimaado lagu qiimeynayo xaaladaha iyo arrimahan isdaba joogga ahaa maxay hayday wixii dambana mustaqbalka lagaga talshanayo wixii laga yeeli lahaa halkaana intaasaan ayaan leeyahay waxaan ku xidhayaa hadalkayga waxaan aad iyo aad uga tacsiyadeynaya ilaahay wixii dadka halkaa waxyeelada dulmiga lagu geystay ha u naxariisto wixii dadkii dhintay oo dadkii ka dhinteen ilaahay samariyay imaan ka siiyo maxay ahayday waa arrin aad u xun oo aan sinaba ku habboonayn aad baan uga jilcooday markaan arko dadka liiska magacyadooda la soo qoray carruurta yaryar ay ku wada jirto maatidii halkaana intaasaan leeyahay waxaan hadalkayga ku soo gaabinayaa waxaa jiray qolo kooxahoo iyaguna meesha la yidhaa awaare maalin dhaweed ku shiray oo yidhi waxaana la yidhaha bahagar xajis qoladaana kelmad baan leeyahay oo dadka u sheegaya horta markii hore garxajis waa Siciid iyo Daawud marka waxa ka sokeeyo maxayday marka labada laga yimaado ee garxajis halka la yimaado labadaana ay kala yihiin waxa ka sokeeyo la yiraahdo bahagar xajis yaanu garan maayo meel ay jiraan ma jirto waxba kama jiraan waxa kale oo inta ku daraya talada qabiilkee guud garxajis waa reer ballaaran dadkuna waa caynka markay tala guud ay tahay wax guud maxay taabanaya ama tala guud oo reerku isugu yimiyo uu go'aan ku qaatay uunbu iyo codkaas ku bixi kara ama mid sandaladeed oo guud oo maxay mas'uuliyadii guud ee sandaladeed haysabay uu ku bixi kara wixii cid aan ahayn waa kooxun meel isugu tagtay taana waxaan leeyahay dhawaaq badan baan ka maqlayo waxay maartay inaan ka hadlo aan marka u taabanaya aad baa dhawaaq badan uga baxay waxa weeyaan iyadana in maxay ahayday wax la yiraahdo bahagar xajisna ma jiraan waa raguna ay la noqotay sida uu la koonaatay tala guud oo garxajisna maaha marka taana dadku inay saa ogaadaan baa habboon dadkana waxaan guud ahaan leeyahay waa soo baxay 7kan kolba maxay cidii doon afar ama laba ama haduu doono shakhsi baa noqday in qof waliba intuu mikrofoonka yar qaato ama koox waliba tiraahdo annagu hadaanu reer hebel nahdo magaca guud la isticmaalo halkay ka oran lahayn hadaanu hebel iyo hebel nahay taasuna waa waxyaabaha maanta aad iyo aad dhibaatada badan dadkii dalka ugu haya intaana halkaasaan ka leeyahay aad iyo aad baan hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad buu idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh